السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وكدوين عشرة دي كلا كهرية. عشر كان وحكوساب سنية هاي سكايب يكوساب سنية هاي مركا وحونا صوب بندقية عشر كان لو صوب بندقية سيد الله له لفاق اللي بوصو ديري سكايب كذا. انت بدن dadka skype way isticmaalaan oo especially dadka qaas ahaan dadka muxuu ahaa hay'adaha iyo waxa uu shaqeeyo hay'adaha international ka u shaqeeya ama kuwa local ka ama wasaaradaha inta shaqeeyso shaqo rasmi ah sameeyso dhamaantood skype way isticmaalaan waana loo baahan yahay oo wax dadku ay ka wada xiriiraan oo dadka shaqaalaha ay ka wada xiriiraan madaxdooda iyo iyaga ay ka wada xiriiraan waxaa kaloo dheer skype inta badan mararka qaar hadda waxaa la isugu soo diraa interviewga marka interview laga qaadayo oo lagu shaqaaleysiinayo waxa way skype ka lagu soo dirayaa hadii jeer ama waa laga soo wacayaa oo interview oo hallka phone laga qaadaya marka waxyaabaha skype laga soo diro marka skype sidii emailka oo kale uma fududo oo inboxkiisa si toos ah iskama aadi kartid mararka qaar way iska qarsoomaan markay muddo ka soo wareegto lifaaqa ama fileska laga soo diray waad receive gareysay mararka qaar way iska qarsoomaan anigu waxa taa igu dhacday dhowr jeer wuxuu ahaa in hadii hadda aan galo aan raadiyo muxuu ahaa file ay soo diray hal sano laba sano ka hor si toos ah uga helay Skype marka qaab loo raadiyaa jirta hadii ay marka arrintan ku qabsato 10 kan kaga bogo oo si fiican uga faa'iideyso horaan u galaya adoo computerkaaga uu ku furan yahay ama desktop meesha doonto jooga yaa waxaad isla taabanaysaa office buttonka waa kan oo keyboardka ku yaala office button iyo waxaad isla taabanaysaa R letter R waa xarafkaas R bas isla taabanaysaa marka hadaba aan taabto hore aan socono waan taabtay markaan taabto boxkan ayaa ku soo baxaya boxkan waxaa ku qoran config lama rabo adiga marka aad ka tiraysaa config waxaad ku qoraysaa calaamadda percentage waa isla qabanaysaa shift iyo number 5 kadib waxaad qoraysaa app kadib waxaad qoraysaa oo ku sii xijinaysaa data okay kadib waxaad ku dhameystiraysaa percentage hadana calaamadda percent ayaad ku dhameystiraysaa marka wuxuu noqonayaa percent app data percent wuxuu noqonayaa kadib waxaan dhahayaa okay markaan rabo boxkan ay furmayo boxkan markuu ii furmo boxkan waxaan ka raadinayaa meel Skype ay ku qoran tahay aan ka raadinayaa Skype meesha ku qoran tahay raadinayaa waa kana halkan waxaa ku qoran Skype aan furaya marka laba jeer aan tuujinaya double click yaan leeyahay double click markaan dhaho waxa ii soo baxaya inta Skype account oo aniga isticmaalo on computerkan ku isticmaala halkan ka soo baxaya aniga hal kaliya ayaan isticmaalaa hashi waa tawa AU5 waxa kala oo dhan account maaha marka taasaan double click dhahaya aan furaya calashan markaan furo halkan waxaa ku qoran media messaging yaa ku qoran macnaha sawirro wax noocaas oo kale hadii lagu soo diray sawirrada halkan aan ku dhufanaya double click aan leeyahay halka markaan double click hadana tan koobaad mooyee tan labaad oo media cache 3 ayadana double click dhahaya way soo baxayaan marka sawirrada waxa la wixii sawir ahaa oo media ahaa laga soo diray ama video waxa ahaayeen halkan ay ugu jiraan oo halkan marka kala degaya okay hadii document lagaga soo diray meel kale uu galiyaa inta badan baagan la dib aan laabanaya waan ka laabanaya mar labaad aan tuujinaya waan ka laabanaya mar saddexaad aan ka laabanaya meeshii uu Skype account-kaaga magaceeda uu ku qornayd yaad hoos u baxaysaa halkan waxaa ku qoran my Skype received files kana double click dhahaya markaan double click dhaho waa kana marka aniga hadda hore imtixaan la iga qaaday waa kana written interview annex 1 waa kana waxa lagu soo diray kana Excel waa kana Word waa aragtaa markaasaan furanaya ama hadaan rabo inaan naqtiimaya ama hadaan doonayo qof saaxiibkayga inaan u diro ku naqtiimo aan u diraya marka kadib laakiin hadaan Skype si toos u galo ma arkayo oo lama arki karo marka maxaad fahantaa hadda waxaad fahanday kow meesha laga raadiyo muxuu ahaa wixii sawir oo kale iyo video iyo wixii iyo meesha laga raadiyo wixii file oo muxuu ahaa lifaaqa kale sida documentiyasha oo kale Word ama Excel oo kale laga soo diray meesha galayaan marka halkaas aan ku soo gabagabeynaa 10 hadii aad ka heshay fadlan like noo saar adiguna isdiiwaan geli si aad ula socoto 10 xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.